السلام عليكم داود وامر كريم مقالدين امتحانان kaga waramayay maxay Soomaalidu uga bixi lahayd faqriga sababta koobilaatanaad waxa qaar kamid ah dadkeena mar walba ku soo horeysa been bulshadana qayb kamid ah waxa ay caadiysteen beenta sheegideeda iyagoo marmarka qaar dadka kaga xaraabisanaya taasina waxay ku keentay dadka beenta caadiystay inaan waxba laga qorin yacni aan waxba laga dhigeysan tusaale ahaan haddii aad tahay ganacsade beenaalaha macnaheedu waxay tahay macaamiishaadu kuma rumaysanayaan yacni kuma aaminayaan si haddii aad tahay macallin beenaalaha ardayda wax u dhigaysa waxba ka dhigaysan maayaan haddii aad tahay shaqaale beenaalaha ninka maamulkaaga hadii maalin wax run ay kugu dhacaan ka rumaysan maayo maxaa yeelay been hore soo sheegtay marka sideed horumar dhaqaale u sameyn kartaa haddana wax ka rumaysan inaanay ku aaminayba taasi waa su'aal adiga laga fadhiyo jawaabteeda mahmaa Soomaaliyeed ayaa tiraahdaa beentaada hore runtaada dambe wax yeesha haddaad markaa been caadaysato maal ay wax ka rumin been dadku rumaysan hore loo yiri tell nine truth and one lie and you become famous for that lie oo macnaheedu noqonayo sheeg 9 runood iyo hal been waxaad ku caanbiyay halka been aad sheegtay sababta labilaatanaad waxaynu doonaynaa inaan degdeg noqono aroortii wax beertaa galabtiina waxaan doonayaa inaan goosto wax suuragal ah maaha bal ila dhageyso sheekada malaawaalka haddana xikmad xambaarsan nin beeroolaha ayaa maalin soo maray kayn uu shimbir ka dhex qaylinayo markii uu ninku kaynta soo galay shimbirkii joojiyay ninkii kadib wuxuu weydiiyay maxaad sanduuqan ku seetaa si xageed ku socotaa ninkii beeroolaha ayaa ugu jawaabay sanduuqa waxaan ku sitaa darxi waxaan u socdaa suuqa san iibi darxiga kadibna aan soo iibsado baalalka shimbiraha shimbirkii ayaa yidhi waxaan haystaa baalal fara badan midhan ku siiyaa waxaad siisaa darxiga kadib ninkii uu ku waafaqay wuuna siiyay darxigii isaguna wuxuu ka qaatay baalkii haddana maalintii labaad ayuu ninkii soo maray kaynta si leeg bar dhacdo waxay isweydaarsadeen baalkii iyo darxigii sidaas isku weydaarsan jireen maalmo ilaa uu shimbirkii bilaa baalba noqday waanu duuli kari waayay kadibna uu dhintay shimbirkii dulada sheekadan waxay xambaarsan tahay shimbirku dariiqu sulaawe kaga fuuday oo dad kaga maarmaysa darxiga diidii jirtay ayaaba ku noqotay ta ugu adag ee sababtay dhimashadiisa sababta saddexlaatanaad waa iimaan darada qofka yacni hunguri weynida qofka iimaanka daran waa qof cid kale aan waxba ogolayn ee kaliya uu isagu wax isla rabo mar walbana wuxuu rabaa wax dheeraad ah mana iimaansado waxa ku filan oo uu haysto bal la dhageyso qiso arintan ka tarjumaysa waxa jiray nin beeroolaha oo loogu balan qaaday in uu qaato dhul leeg inta uu socon karo leenteeda ayadu ka dhacayso laakiin waxa sharti looga dhigay inuu ku soo noqdo meesha uu ka dhaqaaqay intaana ayadu dhicin ninkii wuxuu bilaabay inuu ordo sidoo uu badsado dhulka uu qaadanayo waxa uu ordo markii casar gaaban ahay ayaa uu xasuustay shardigii kadib inta uu dib u soo laabtay ayuu wuxuu orod lahaa oo dhan isticmaalay si uu meeshii u gaadho marka uu meeshii soo gaadhay ayaa inta uu dhacay wadno istaagay halkaasna uu ku dhintay qisada waxaanu ka qaadanaynaa qof kasta oo iimaan daran inay caaqibadiisu talo kale ay tahay sababta afarilaatanaad waxba kama barano khaladaadkeena ee waynu iska dhaafnaa nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa hata waxa uu yidhi kullu ibni aadam khadaa وخير الخطايين التوابون بني آدم كورن هو قفا وحانا هو خير بدن قف قفكيسا كتوبت كينا قفك waa laba qaybood mid aad ku gaftay xaqi Ilaahay sida wixii uu ku amrood sameyn weydo marka qafka waa inaad ka toobad keentaa ka kalena waa qaf uu galo isagoo hawl ku jira ama shaqeynaya qafkan Ilaahay kugu ciqaayo maayo waxa ciqaab kugu filan qafka aad ka shaqada waxa kaaga imaanaya marka qafafkan galna waxaan looga baahanaa wax ka barano sababta 5 bulshadana qayb kamid ah balwad xun leh waxay waqtigooda qaaliga ku lumiyaan iibsiga balwad sida qaadka sigaarka iyo wixii lamid ah marka aad waqtigaaga iyo hantidaada ku lumiso helida balwad maxaad ka sugin inaad horumar gaadho deedeeda balwada sida qaadka oo kale waxay ka dhigan tahay adoo qeyrka hoos dawrsanaya maxaa yeelay haddii aad weydo waxaad ku iibsato qaadka iyo balwada waxa kugu qasab noqonaysa inaad qof barido oo tiraahdo lacag sii taasina shakhsiyadaada ay hoos u dhigaysaa sida daradeed daawade mar haddii aad tahay qof balwad la Ilaahay kaama dhigay ogsoonaad wadada faqriga gacmaha ku jeexatay